24 cisho oo ay ku jireen ciidanka Itoobiya dagaal adag oo ay la galeen jamhadda TPLF oo 27 sano ka talinaysa Itoobiya ugu dambeyn si rasmi ah ayay militariga iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaas u shaaciyeen inay qabsadeen magaalada Maqal oo ahayd caasimadda ismaamulka Tigreega. dagaal culus ayaa ka dhacay magaalada banaankeeda 12 saacadood ee la soo dhaafay kaasoo la rumaysan yahay inuu galaaftay nolosha dad badan. waxaana warar madax bannaan in la helaa ay tahay mid adag waqti xaadirkan maadaama sheegashada dawladda oo kaliya la baahiyay. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo bartiisa Facebook-ga soo dhiga qoraal lagu qoray afka Xamaariga ayuu ku sheegay in ciidamada difaaca ee dalkiisu badbaadiyeen qorshe la doonayo in lagu kala gooyo Itoobiya kaasoo uu sheegay inay soo abuleen kooxo iskaashado oo ay fulinaysa TPLF oo ugu yeeray magaca junta. taliyaha ciidamada dagaalkan hogaamiye General Burhanu Julo ayaa wariyaasha Addis Ababa kula hadlay. wuxuu u sheegay inay qabsadeen magaalada muhiimka ee Maqale oo ay gacanta ku hayaan. laakiin afartii galabnimo ee waqtiga geeska Afrika wararkii ugu dambeeyay waxay hoosta ka xariiqayeen inaysan ciidanka Itoobiya ku sugnayn magaalada balse ay u jireen wax ka yar 20 kiiloomitir. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa u mahadceliyay shacabka dalkiisa gaar ahaan kan Tigreega oo uu sheegay inay garab u noqdeen ciidamada si looga hortago waxa ugu yeeray canaasiir ka soo horjeeda dawladnimada Itoobiya. TPLF ayuu sheegay in burburiyaan meel kasta oo muhiim ahayd. kaniisadaha iyo masaajidada ayuu sheegay inay u isticmaaleen kaydad hub si diyaaraduhu aysan u bartilmaameedsan balse wuxuu sheegay in si nabadgelyo ah looga qabsaday goobahaasi. sidaas oo kale wuxuu cadeeyay in dawladdu degdeg u dhisi doonto goobaha kaabayaasha dhaqaalaha ee lagu burburiyay dagaalka. wuxuu sheegay in kooxda TPLF ay jabeen oo aysan ka hari doonin ay maxkamad hor keeni doonaan. taliyaha ciidanka difaaca ee Itoobiya waxa uu kaloo sheegay in marka ay soo qabtaan kooxahaas ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan cadaaladana la hor keeni doono. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu kaloo muujiyay kalsooni ku wajahan ciidanka dalkiisa oo tilmaamay inay yihiin kuwa markasta u taagan danaha Itoobiya oo wax kasta ay ka hormarinayaan. wuxuu si toos ah u sheegay in ciidankiisu ay gabi ahaan la wareegeen magaaladan muhiimka ah. wuxuuna inta ku daray inay weli socdaan howlgallada lagula dagaalamayo waxa ugu yeeray kooxaha ka soo horjeeda danaha Itoobiya. halka ay ka baxeen madaxda TPLF in la qabtay in la dilay iyo waxa ku gadaaman warkanba waa mid ku kooban dhanka dawladda federaalka ee Itoobiya. lama hayo ilaa hadda wax war oo ka yimid dhanka kooxda TPLF markii cid ugu wardambeysana madaxweynaheeda la baadi goobayo ayaa fariin qolaadeed SMS u diray wakaaladda wararka ee Reuters taa uu ku sheegay in duqeyn culus iyo dagaal baan lagu soo qaaday magaalada Maqale. labadii sano ee la soo dhaafay magaaladani waxay xarun u ahayd TPLF oo si weyn isku hubaysay. waxaana la eegayaa marxaladda dagaal ee hadda mar kale gudaha loo galay waqooyiga Itoobiya xilli kulan degdeg ah Addis Ababa uga socda madaxda ismaamulada qaarkood iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya.